guuleed aadan cabdi oo ah wiil yar oo dhigtay iskuul bareefad ah oo agoonta iyo dadka danyarta wax lagu baro isla markaana ay gacanta ku hayaan qoyska reer Cali Caateeye gaar ahaan Samsam Cali Caateeye oo kamid ah qurba joogta Buuhoodle ayaa guuleed waxa uu dhawaan soo bandhigay qalab uu sameeyay oo isugu jira gawaari kala gadisan iyo sidoo kale marooxad kuwaasi oo uu ka sameeyay caagadaha saliidu ka dhamaato taarar iyo waxyaalo uu isku xilxidhay oo dhammaan shaqeynaya isla markaana ku shaqeynaya baytariyada ama xajaarta rikoodhada loo isticmaalo waxaana deeq lacageed oo la soo gaarsiiyay ka warbixisay macallin Caasha Axmed Cumar oo loo yaqaan Caasha Saxarle isla markaana kamid ah macallimiinta Buuhoodle gaar ahaan iskuulka agoonta iyo danyarta ee Xaawo ayaa ka warbixisay marxaladda iskuulkani soo maray iyo guuleed yare iyo sidoo kale waxa ay sheegtay in iskuulkani muddo 4 sano uu socday isla markaana u baahan yahay in la garab qabto caruurtan agoonta iyo danyarta isugu jirta oo u baahan in loo tayeeyo waxbarashada iyo iskuulkaba waxayna baaq u dirtay guud ahaanba ummadda Soomaaliyeed iyo cid kasta oo danaynaysa inay ka faa'iideysato khayrkan iyo cidii gacan ka geysanaysa intay ahaataba iskuulkani waana tan iyadoo ka hadlaysa magacayga waxa la yiraahdaa Caasha Axmed Cumar waxaana maamulaha iskuulkan dugsiga danyarta iyo agoomaha waxa weeyaan hore ayaan waxaan u shaacinay guuleed yara oo ah maskax cusub oo dugsigan dhigta oo agoona oo ka soo dhaxbaxay ardadan maxay oo qalab uu sameeyay ayaanu hadda ka hor soo shaacinay oo soo bandhignay marka maanta waxaan idin sheegaynaa dadkii aanu u bandhignay guuleed yare oo dugsigan dhigta maxay danyarta agoomaha primary school maxay dadkii aanu u soo oo bandhignay waxan ayaan idin maxay deeqihii ay ku soo deeqeen iyada oo iskuulku uu yahay iskuul ballaaran ardadii iskuulkana aad aragtaan oo ay dhinacyada fadhidaan iskuulkanina uu u baahan yahay iskuul in wax loo qabto oo wax loo dhiso maxay iskuulkan oo yaa asaasay iskuulka marka hore waxa asaasay iyada oo 20 gabdhood kaliya ayaa waxaan ku asaasnay magaalada Buuhoodle waxaana sabab waxa oo asaastay Samsam Cali Caateeye wuxuu ahaa hal galaas oo ah 20 gabdhood maanta wuxuu mariyaa 128 hablaha waad aragtaan inta leegihiin wiilashana waa u jeedaan maanta iskuulku uu bilaaran yahay hoyga uu ku jiro iskuulku waa kiro maxay Samsam Cali Caateeye ayaa khayr Allah siiyay iyo caruurteeda baa kula laba iyo hooyadeed cid kale oo iskuulkan soo meel gelisaa ma jirto iskuulkan hore ayaan u soo sheegnay hawlihiisa oo dhan iyo sababaha uu ku dhismay maantana waxa weeyaan waxaan idin shaacinaynaa inuu u baahan yahay in dhismo la siiyo oo hooy oo isagu iska leeyahay bacdama hooygan uusan isagu lahayn ee uu yahay hooy kira ah oo bil walba laga qaato aniga soo koobaya iskuulkan waxaan u bandhigaynaa wax qabadkiisa dhammaan ummadaha muslimka ah maxay ku abtirsan diinta islaamka iyo hay'adaha maxay deeq bixiyaasha ah iyo jaaliyadaha dibadda jira ee Soomaaliyeed oo cid kasta oo wax u qaban kartay iskuulkan gaar ahaan kuwa ka soo jeeda deegaanka Buuhoodle in wax qabad muuqda oo dhaba loo qabto ardaygan oo isaguna guuleed yar oo ka soo dhaxbaxay ardayda aan dhinacayga fadhida oo macnihii maskax iyo aqli saliim la yimid oo sameeyay oo aan hore idinku sheegay wiil yar oo Obama madaxa u salsalaaxayo saacad sameeyay inuu isaguna baradheeraaday oo intaas oo qalab uu soo sameeyay hadii macnihii la garab galo oo wax la taro oo taakule helana uu ka sii badinayo marka waxaan ka cusaleynaa dhammaan ummadaha muslimiinka ah Soomaalida ah oo Soomaaligu dhex jooga islaamku dhex jooga dhammaan ummadaha islaamka iyo ummadaha Soomaaliyeed gaar ahaan deegaankan uu ka dhashay Buuhoodle jaaliyadiisa inay wax tar u soo diraan oo wax u taraan hooyadiis iyo isaga hooyga oo ku jira hore baan u soo shaacinay iskuulkan inuu kira ku jiro oo kira uu yahay oo qof culayskiisu saaran yahay waan soo shaacinay waxaan codsanaynaa dadka dar ilaahay wax u qabta ee iskuulada ama waxyaabaha sadaqada jaariya oo binooyin iskuulada ardada loo dhiso macni qof waliba wuxuu geystay isaga iska leh ardayda maanta wax baranaysa arday Soomaaliyeed oo soo kacaysa hadii ay marka faa'iidada iyagu helaan idinkuna aqri ayaad helaysaan marka waxaan idinku codsanaynaa in iskuul loo dhiso in dhaqaale la soo sameeyo in macallimiinta la soo taakuleeyo maxay imikana waxaan halka idinka sheegayaa shaacintii aan shaacinay intii dhaqaale u soo dirtay guuleed yare maxay ahayd diaspora dibadda joogta iyo qof waliba wuxuu soo diray iyadoo ay maamadii nala fadhido oo aanu ku wareejin doono insha Allah waxa la wixii dibadda looga soo diray ayaanu halkan ka soo shaacinaynaa
annaga oo aan dadkan oo ah wada qurba joog ah annagoo aan goobahaas iyo asiiba kala sheegahaynin qodobka koobaad lambarka koobaad waxa weeye cabdiraxmaan xirsi muslin wiilkay la yidhaaho wuxuu soo diray $50 oo ugu soo deeqay guuleed yare cismaan axmed barkhadle cismaan axmed barkhadle wuxuu soo diray $50 isaguna nafiiso cali waxay soo dirtay $200 waxay tii $50 waxaan ugu deeqay iskuulka $150 waxaan ugu deeqay guuleed yare xuseen dalmar wuxuu soo diray $50 isaguna ilaahay khayr ha siiyo cabdi aadan bile oo Sweden jooga wuxuu soo diray $100 xuseen yarow xasan oo Mareykanka jooga wuxuu soo diray $50 cismaan sheekh yuusuf oo isna Mareykanka jooga wuxuu soo diray $40 dhammaan dadkaas ugu soo deeqay wiilka yar ama iskuulka wax kaga soo darsaday waxaanu ilaahay uga baryeynaa in uu macnaheedu meesha ka soo saareen uu xasanaad ugu bedelo miisaanka aakhirana uu ugu saayidiyo aakhirana uu ilaahay waxaanu hortiina ku wareejinaynaa lacagtii guuleed yara loo soo diray oo dhan $500 ayaanu hadda guuleed ku wareejinaynaa iyo hooyadii maxay waxaan doonaynaa in aad naga gudoontid maryan xasan lacagta deeqda ah ee ay dadka walaalihiisa ay ugu soo deeqeen lacagtaasi waa $500 anigoo ku hadlaya afka macallimiinta Xawo Primary School ee magaalada Buuhoodle waxaan leeyahay halkan waxaan uga mahadnaqayaa dhammaan dadka maxay muslimiinta ee soo caawiyay guuleed iyo iskuulka khayr Allah siiyo waxaan soo gaadhay lacag ah $550 lacagtaas $50 waxa iskale iskuulka $500 kalena waxa iskale guuleed iyo hooyadii oo na dhinac fadhida marka waxaan ka codsanaynaa dhammaan dadka muslimiinta ah khayr Allah siiyo horta kuwii soo caawiyay kuwa badan oo ballan qaaday oo wali aanan xawaaladaha lacagii ka helina waa jiraan insha Allah kuwana waa heli doonaa haddii Ilaahay idmo kuwa ballan qaadayna waa jiraan oo soo diri doona insha Allah haddii Ilaahay u fududeeyo waxaa kaloo jira kuwa noo soo hambaliyay guuleed hooyadii waxaan guuleed hooyadii waxaan u mahadnaqayaa dadka muslimiinta ah ee soo caawiyay annaga iyo iskuulka soo caawiyay iyo guuleed yareba soo caawiyay yaan u mahadnaqayaa waad mahadsantihiin waxa weeye waxaan kaloo u mahadnaqayaa saxaafadda macallimiinta iskuulka waan horumarin karaa guuleed waxa weeyaan wiil yar baa tahay ilaahay waxaan ku baryaynaa inaad soo barbaartid adiguna aad maskaxdaada aad ka shaqaysiisid maxay haytay adiga waxaad dadkii kuu soo hambaliyeeyay iyo dadkii kuu soo diray iyo saxaafadiiba maxaad oranaysaa dhammaan agabka guuleed soo bandhigay isugu jira gawaadhi marooxad iyo diyaarad ayaa shaqaynaya guud ahaantoodba waxa uuna ka sameeyey sida idiin muuqata taarar iyo waxyaalo isku xidhay iyo sidoo kale caagadaha saliidu ka dhammaato waxaana arrintani noqotay mid ay dadku aad ula yaabeen cabdicasiis aadan jaamac Kalson TV Buuhoodle